siyaasi Ismaaciil Hurre Buuba oo maanta warfidiyeenka kula hadlayay hotelka Ambassador ee magaalada Hargeysa waxa uu markii ugu horeysay ka hadlayay xiisadda ka taagan deegaanka Tukarraq ee u dhaxeeya maamulka Puntland iyo Somaliland. Aniga waxay ila tahay Puntland inay hadilmi aqoonsato Somaliland hadilmi maxaa inay maanta qaran jiro oo shaqeynayo oo ka kooban dadweynaha Somaliland oo dhan amba bari ha noqoto amba galbeed ha noqoto waa laga maarmaan. Somaliland inay hadilmi xuduudkeeda hadilmi maxaa sugtaa waa laga maarmaan. Puntland inay hadilmi ku ekaato xuduudkii hadilmi Ingiriiska iyo Talyaaniga u kala dhaxayn jiray waa laga maarmaan. Sidee loo gaaray weeyaan halkaas. Aniga waxay leedahay si diblomaasiyadu ku jirto, si hadil insafgarad ku jiro, si hadilmi danta labada dadood hadilmi xuduudka labada dhinacba ka yaala oo dad Soomaali oo walaalo oo isdhalay ay hadilmi ku jirto in hadilmi maxaa arintaas loo gaaray aanay noqon mid hadilmi maxaa arrimo aan laga fikirin amba dagaal aan laga fikirin oo dabeedna dhibaato badan hadilmi dadka u soo jeeda oo ka dhasho. sidaas aawadeed dawladda hadilmi maxaa Soomaaliyeed iyo dawladda Somaliland inay hadilmi wada hadalkii soo celiyaan xuduudihii hadilmi hortalayn la isku ixtiraamo hadilmi maxaa 60kii labadii wadan ay isu tagay inay isku ixtiraamaan xuduudahoodii. siyaasi Ismaaciil Hurre Buuba waxa uu sidoo kale ka hadlay hakad la sheegay inuu galay heshiiska u dhaxeeyay dawladda isu tagay Imaaraadka Carabta iyo waliba sidoo kale Somaliland ee ku saabsanaa saldhigga military laga siiyay isu tagay Imaaraadka Carabta magaalada Berbera. dawladda Imaaraadka iyo dawladda Somaliland xiriir wanaagsan inay yeeshaan waa mid laga maarmaan ah oo in hadilmi Somaliland ay ka shaqeyso arintaas hadilmi maxaa dawladda Imaaraadka ay ka shaqeyso waa arrin wanaagsan iyadoo sidaas tahay mandaqada ay ku noolahay waa mandaqad aad iyo aad xasaas ah oo geopolitics ka hadilmi maxaa mandaqadani uu hadilmi dhibaatooyin fara badan ay ku xeeran yihiin ku hadilmi maxaa gadaamsan yihiin. sidaas awgeed talaabadii la qaadayba in hadilmi la miisaamo laga helo dadweynaha hadilmi ay khusayso dadka Somaliland bay arrintan khusaysaa waana lagu kala qaybsan yahay arrintaas hadilmi maxaa arrimaha hadilmi wasiirka khaarijiyada uu sheegay hadilmi dhinaca hadilmi maxaa farsamada waxyaalaha hadilmi wali aan laga baaraan degan inay jiraan. aniga waxay leedahay arrinta ka muhiimsan waa arrinta siyaasadda. waa arrintani waa inay noqotaa arrin dadweynuhu isku raacsan yahay waa arrin masiiri ah oo keeni karta hadilmi isku dhac Somaliland iyo hadilmi dawlado kale oo jaarka ay ku dhici karto. sidaas aawadeed hadilmi dawladdu kulkay arrimo hadilmi maxaa taabanaya nabadgelyada iyo degnaanshaha geyiga Somaliland iyo geyiga hadilmi maxaa geeska Afrika lagu nool yahay bay qaadanayso inay hubsato inay dadweynuhu u la socdo dadweynahana ay si wanaagsan ugu soo bandhigtay arrintaas. intaas kadib waxa uu ka hadlay ansixinta xubnaha golaha wasiirada ilaa maalinnimadii shalay ay wadeen golaha baarlamaanka Somaliland waxa uu sidoo kale dhaliilo u soo jeediyay golaha wakiilada Somaliland iyo waliba guurtida oo uu ku tilmaamay inay yihiin kuwa fadhida isla markaasna gaabis badan ka muuqda shaqadooda. waxa uu madaxweynaha ugu baaqay inuu gabi ahaanba kala diro baarlamaanka sida ogsoontihiin muddadii ay ahayd inuu dadka hadilmi la soo doortay way laba dhaaftay hadilmi maxaa wax lama arag hadilmi wax baarlamaan isku sheego baarlamaanka maanta Somaliland oo kala ah caalamka ma jiro waa wax lala yaabo waxay dhaaftay hadilmi 5 sanadood baa la doortay maanta intay fadhiyeen 10 Soma intay fadhiyeen aba ka badan ba wax aqliga wax gala maaha waxaan hadilmi maxaa waxay ku gawaadhowda oran doonaanba meesha annaka iska fadhiyeen oo cidibana bedeli karto. kolkaas sidaas baarlamaanku hadilmi maxaa runtii aad iyo aad buu hadilmi maxaa sidoo u shaqeynaya ay u khaldan tahay. gabagabadina waxa uu ka hadlay cunaqabatayn ay xukuumadda Somaliland saartay warbaahinta madaxa bannaan taasi oo la sheegay in mas'uuliyiinta dawladda ay xogta siin doonaan warbaahinta dawladda. Ismaaciil Hurre Buuba oo arrimahan ka hadlay waxa uu yiri warbaahintu horta hore way madax bannaan tahay si madax bannaana cidii hadilmi maxaa warkana way u tabin kartaa dawladana hadilmi wixii waray ka hesho way sii deyn kartaa hadii ay dawladdu tiraahdo hadilmi warbaahinta madaxa bannaan ma isticmaalayda isdhaawacaysa
waxa loo qaadanaya oon hadilmiyay warbaahin iyadoo ay hadilmiyay maxaa iska macmalatay inay hadilmiyay maxaa doonaysa inuu shaqeeyo taasina wax suuragal ah maba ah hadalka ka soo baxay siyaasi Ismaaciil Hurre Buuba ayaa waxa uu ku soo beegmaya xilli maalmihii ugu dambeysay guud ahaan dalka lagu hadalhayay xiisada ka taagan deegaanka Tukaraq iyo waliba sidoo kale hakad la sheegay in dawladda Soomaaliland ay gelisay saldhiggii military ee dawladda Imaaraadka laga siiyay magaalada Berbera. Sakariya Sudeesi iyo Maasim, telefishinka Ariel, Hargeysa.